Africa Climate Science. subax wanaagsan waa waqti aad u horeeya waa almost 6 subaxnimo runtii horeelkan ayaan deganahay oo lamaada loo yaqaano waqtiga ma soo toosnay joogiga aad biskaga degan yahay waxaan u diyaar garoobaynaa inaan baxno waan tagno meeshii barnaamijka dhacayay barnaamijkan oo markaa laga hadlayo isbedelka cimilada shirkii weynaa isbedelka cimilada ee Nairobi ka dhacayay tababaro ka horeeyaan qaadanay shirarka horeeyaan noo socday maanta madaxweynaha dalka ayaa barnaamijka soo xiri doona marka horeelkan balna sii dejiyo waxa weeyaan oo muddadaaba deganeen subax kasta 6 baxaynay waxaan soo noqonay 5 galabnimo anagoo daalan haddana shaqada xaggan bay noogu sii soconaysaa meeshan marka waa meel aad u qurxoon oo aad u shidan runtii waxyaabaha ku shidan tahay kamid ah horta waa beer yar bay leedahay sidoo kalena waxay sidoo kale leedahay swimming pool yar oo subaxii salaada hore markaad kacdo kale intaad quraacdaada yar iska soo cunto ayaad iskaga dul shaahi kartaa meelahan beerta ay aad ku degan aad ku macaan lamaada horeelka loo yaqaan haddaad timaado kale it's okay meeshan markaa swimming poolka iminka aad bay qabow tahay oo lama geli karo laakiin duurkii oo kale haddaad gasho okay weeyaan aad bay iskaga diiran tahay meeshan meelahan baa iska yar fadhiistaa koromade adigu waa taagan yahay degdeg baa ku labistay waxa weeyaan saan uga qayb galo dee adigu mashideeyay saaxiib yar idinka iga way ka waramaan steerka moment is a global moment where climate action is actually green growth. waxay adduunyada oo dhan iyo African Union iyo madaxda dalalka Afrika oo dhan iyo sidoo kale dalkan Kenya hogaamiyaheeda William Ruto madaxweynaha dalkan Kenya William Ruto ay dhammaan iskugu yimaadeen shirka caalamiga ee African Climate Summit shirkan oo runtii lagaga arrinsanaya arrimaha deegaanka iyo cimilada ee sida aan isku bedelaya loo baahan yahay in gacan bira lagu qabto Afrika oo dhan waxay ku dhawaaqaysaa hal cod oo ah inaanay u baahneen reer Yurub iyo reer Galbeed inay dalalkooda iyo dhulkooda yacni gacanta ku dhigaan oo ay waxa weeyaan arrimaha kala qabtaan laakiin Afrika ay u baahan tahay inay iyadu isku tagto oo ay tashato ayahooda iyo waxa weeyaan arrimahoodana iyagu ay xaliyaan dalalka waxa weeyaan waxa loo baahan yahay si nolol waarta oo waxa weeyaan si jirta loo helo in dhir fara badan laga beero dhulkeena si arrimahan cimilada isbedelkeeda looga hortago dalkeena marka loo yimaaday dhulkeenu wuxuu ka mid yahay dhulka ugu yacni waxa weeyaan dhirtu aad ka ugu yar tahay marka loo eega baaxadhaan inta la eg tahay iyo inta dhir ee waxa weeyaan dhulkeena ku yaala runtii waxyaabahaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha loo baahan in laga hortago runtii shirar istaba jooga maalmihii ugu dambeeyay socday climate summit ki beribu bilaabmaya isaga qayb kale oo kamid ah mid kale maanta soo dhamaaday anaga oo dhalinyaro markaa muddo 15 cisho tababarna la siinay haddana isbuuc kale imika noo socday maanta waxa laga yaabaa in madaxweynaha dalkan Kenya William Ruto uu noo soo xiro iyadoo dhammaan arrimahaas waxa weeyaan cilmigeeda iyo xogteeda oo dhan la siinayay iyo sidoo kale inuu qof kastaaba mas'uul ka noqon karo dalkiisa iyo deegaankii uu ka yimi haddii ay arrimo kale ka soo kordhaan isaga lagala xiriiro insha Allah dhamaanteena waxaan u baahanahay haddii Soomaali nahay inaan si gaar ah deegaanadeena dhulkeena uga warhayno